waakana mooskan hadda xabadkiisa waxa la gadaa 3 kun 2 xabad 5 kun la gadaa awalna xabada ku shilaa la gadaa jiray xabada mooska ee shalay joor loogu cuni jiray ku shilin ayaa maanta sii maraysa 3 kun oo shilinka Soomaaliga ah ka gadaal markii adkaatay in gaadiidkii mooska keeni jiray ay soo galaan magaalada sidoo kale ay go'een beero farku tiris ahaa oo mooska ku beernaa sababo la xiriira fatahaadii hubiga Shabeelle sida ognahay waa biyaha fatahaada Hirshabeelle ayaa mataqaana ku fatahay inkastoo dhaqdhaqaaqa guud ee ganacsiga ay saameeyeen fatahaadaha haddana muuska waxaad moodaa inuu si weyn sarakac u sameeyay sida sharxayaan qaar ka mid ah ganacsatada ka ganacsata muuska oo la hadlay warbaahinta City mooska waqtigii hore waxa iska ahaan jiray raqiis waxaan ku raaddaa waa wuxuu ku imaada jiray baabuurka subax al-sayid markuu inta kaaga baxa 8 saac 9 saac oo ku jiro haddana wada la mar malahan wadada iyadoo dhibaato ay ka jirtay haddana waxa ka jirtaa biyo soo fasahaday oo maxaan ku raaddaa meel la mar malahan kala gidis waay kala rag waay hadda maanta moos meel baladka waakana mooskan hadda xabadkiisa waxa la gadaa 3 kun 2 xabad 5 kun la gadaa awalna xabada ku shilaa la gadaa jiray marka sidaas darteed waxa keena biyahan soo baxay mooskiyo maxaan ku raaddaa xagga wada ay jirin inta hadana biyo ka soo baxeen sidaas darteed ay mooska noogu qaalay marka alxamdulillah waa laga baxay insha Allah mooska sidoo ku soo galaa magaalada waxaa soo galaa koow waxa laga soo qaadaa balcad gaari ka soo qaadaa waxa iskana koonkadina hadda maanta waa laga idaab laga guuruho laga kala qaxo ee biyo soo galeen meesha laga soo gudin jiray baawur kale weyn laga soo gudin jiray ama doona laga soo gudin doonta dabadna la gaarda meerak soo qaadaa ama baawur kale biyo afkooda dhiga ka soo qaadaa maqaasiinka saas ku keena baladkaas soo gilna marka waa alxamdulillah waa dhibaato iska jirta ilaahay hanaga dul qaad insha Allah bismillah dhanka wadada labada dhinac ee magaalada Johor wadada waqooyiisa iyo wadada koonfureysa Muqdisho looga baxaba sida ognahay waa biyaha fatahaada Hirshabeelle ayaa mataqaana ku fatahay gaadiidka wadada dhinaca waqooyiisa hadii aan ku bilaabo tuulada loo yaqaan Xanshooley ilaa maxaa la yiraahdaa meesha controlka Abshir Calguur loo yaqaan inta u dhaxayso ama kiliga oo kili xaar la yiraahdo inta u dhaxaysa ayay biyaha yacni mataqaana awood u fadhiyaan oo waana wadadii ay ku soo baxeen waxa lagu raacaa oo wadadaas loogu gudbaa dadka tuulooyinka ka fogfog meelahaas degan ama meelo kale safarada ka imaanayaba dooman ayaa mataqaana halka loogu gudbaa oo lagu raacaya doontii ilaa $1 iyo bar ilaa $2 ay u dhaxayn jirtay oo maalmahan aan ku ogeyn inay shalay maanta wax iska bedeleen ma aqaan dhinacan koonfur ee wadadan dheer oo Muqdishona maalmo ka hor gaadiidka ayaa mataqaana mari jiray oo fatahaad yacni mataqaana si awood uma ayna soo gaarin haddana waxaan mataqaana warbixin aan ku helaynay oo aan ka warqabnaa oo saaki mar aan booqdiyon tagay oo biyaha magaalada afkeeda lagu celcelinay in dooman ayagana halkaas ay ka bilowdeen oo gaadiidka gabi ahaanba yacni mataqaana uu istaagay markaan waxa kale oo mataqaana barbar socdo dooman yacni mataqaana anaga hataa qudaartan waxa lagu keenaa balcad markii aan laga soo mataqaana mooskan laga keeno doon ayaa webiga ka soo qaada webiga lagu soo ridaa doona soo qaada waxa la keenaa xawaadley doon kale ayaa mataqaana isla markaas haddana lagu soo bedelaa oo buundadii ayay inay ka hoos bixi karaynin doonta balcad ka soo qaado buundadii ma soo gudbi karta doon kale dhinacan kale oo mataqaana xawaadley dhinaca kale ka taal doon kale lagu soo rogaa waxaa dekad noo noqotay oo si caadi aan mataqaana ugu soo degnaa buundadan yacni mataqaana iskarafundo marka alxamdulillah dhibaatada biyaha ay sameeyeen iyo kala go' ay sameeyeen iyana baaxadeed inta ay la egyahay insha Allah biidni Ilaahi kariim ilaahaysa waxaan ka rajaynaynaa in ummadda yacni mataqaana dariiqa ka wanaagsan oo kale ilaahayna marsiyo guud ahaan magaalada Johor waxaa ku geedaaman biyo asalkoodii hore ka yimid hubiga Shabeelle kuwaasoo ku soo fatahay deegaanka waxayna jareen isku socodkii ganacsiga iyo dadka Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay warbaahinta City magaalada Johor